it up. waxaan leeyahay farxad ku noolaada. ما شاء الله وعليكم السلام دمانتين waanu kaa qaadnay hooyo ma fiican tahay maama jawaahir مام جوهر هذا في عنتها هي مقالة مقدشة وهذا قصة سلاماية maama طبعا waxaan rabaa qof walba xilliga iyo waqtiga uu joogo inaan ku salaamo oo niraahdo Ramadaan mubaarak Ramadaan kariim waxay noo soo dhow ciid kuwii wanaag ku wada ciida sharafayna ii tahay DJ Sabeer adiga iyo teamkaaga waa markii igu horeysay in 10 years aan soo galo Instagram oo aad ugu casuunto sharafa ii tahay gabadhayda inay iga horeysay sanadaradeena qaaliga ah sidaad u sheegtay shanta Soomaaliyeed ee xidigta noo ah ku faano haweenahaana inoo ah role model oo runtii aan dhihi karno gedi socodka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed ayay ilaahan waxay u tahay udub dhaxaad marka soo dhawaada waan idin wada salaamay soo dhawow maamo soo dhawow aniga iyo mataanba sharaf bay noo tahay wata inaad iga aqbashay waxagana waxaan ka mahad celinayaa gudoomiyaha warta nabadda Saynab Xabsade oo ka soo shaqeysay waa gabadhii ugu horeysayna waxa iyadu furtana ma sha Allah way hilgalaan Saynab xaggan ka salaamnay hooy maanta waxaan ka bilaabanaa meeshii ay Ilhaan Cumar way ku daawanaysaa oo ay kaga tagtay oo ahayd shaqada aad haysaan maanta oo dhan ma maqlaysaa maamo وعن شقدا أنا يس haweenka waxaan ogahay ciyaal badan oo agooma oo anigu live markhaati ahaa ciyaal badan oo la soo tuuray oo gurigaagii geysay ilaahay ajar ha ka siiyo iyo haweenka maanta shaqada haysan la qaybsan kartaa xaggan waxa ku daawanaya kunomaanka kun iyo mas'uuliyiintii meel kasta ka soo wada jeedana maxaa oran leedahay hooyo dhamaan horta waan salaamayaa si wanaagsan oo runtii waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed barnaamijkan waa wacyigelin oo shaqada aan hayno ay qayb ka tahay DJ Sabeer adiga iyo teamkaaga waxa tiin samafalayaal oo waxa tahay kuwa hadda aniga aan hayay lacaga kuwa u soo diray adoo magaalada jooga ayaa lacag laga keenay Yurub aan gaarsiinaynay dabcan Soomaalida waxay u baahan tahay inay iscaawido waxaan u baahanahay in anagu aan istaakulayno shaqooyinka aan hayno waa shaqooyin adag waa dareemi kartaa wadan burburay dadkiisu isdileen kala tageen haddana dib loo yagleelay marxalad adag lagu shaqeynayo dabcan dalka dad way ka shaqeystaan oo ayaga shaqeysta dadna dalka u shaqeeyaan oo waa dadka xilligan oo kale u soo jeeda volunteer ku shaqeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan anagu waxaan nahay haween waxaan nahay birmageydo waxaan nahay kuwa aad u jilicsan mar walbaba waxaan dib u jaleecinaa noloshii hore aan ka nimid waxa inoo muuqanaya marxaladii adkayd ee qaraareyd maaragtay burburkii 30 sano aan ka dhaxalnayna baday inaan aadno maaragtay dabcan in badan oo Yurub hadda joogto oo maaragtay anigu reer London aan ahay ilaahan markay ka sheekeynaysan waan dareemayay dabcan marka armaanta iyo abuukar maaragtay qaadka inuu joojiyo oo dabcan anu waxaan deganaa magaalada East London oo ay aad u adkaydo runtii dadka ugu badan ee waliba simaanada ay ku noolaayeen marka waxaan aaminsanahay inta badan dadku waxay dhihi jireen waa Rio oo ma joojin karo laakiin anu waxaan ahaa dadka supportiga u ah maadaama family problem badan aan ogaa habkaan u xalinayno oo qaadka u sababay marka abuukar waa ku mahadsan yahay waxaan rajaynayaa one day Soomaali inuu ku guuleysto lacagta jaadkan Nairobi uu loo sii wado inaan ku bedelano wax badan oo dalkeena aan dib ugu qabsano oo beeraha aan ilaano bal beeraha salarka iyo qudaarta iyo tufaax iyo apple iyo waxyaabaha sacneen ragaan leenahay ku bedesho abuukar ha noolaadaan leeyahay marka u soo laabto waxa jira wax la yiraahdo hadda xanuun adduunyada saameeyo COVID-19 dabcan nolosha magaalada markaa fiirisid haween ahaan gabdhihii jaadka iibinayay gabdhihii hay wareerinta iibinayay gabdhihii maxaan ku raadayay jaariyadaha ahaa gabdhihii shaha karinayay hooyadii kowda habeenimo caanaha 5 liitar intay la fadhaaw kowda la fadhiday intaba saameynay ku samaysay waa dareen kartaa marka hooyada Soomaaliyeed akoon male akoonkeen waa ubadkeena dhaqaale meel gaar uma yaalaan assurance ay ku jirto male oo markii dab haduu kaco ay ka gubato hantida
loo soo celin maayo oo waa iyadii ayaa waxay noqonaya qof daymaysan oo mararka qaarkood ayagoo depression ah waxaad arkaysaa markii dhaqaalihii lacagtii dharka intay dad siiso amaaydo lacagta kasoo bixi weyda caqabaday la kulmaan anigu marka rag iyo dumarba shaqooyinka aan qabto oo adigu aa markhaatiga ka tahay waa shaqooyin aad u adag oo aad u xanuun badan walow mararka qaarkood aan israado ma iska resign garaydaa ma iskaga tagtaa laakiin haddana waxaan isweydiiyaa dhexdayda ayaa waxaa jooga juriyaal badan oo jaadgaraynayo ileh may markuu ku dhufto ugu yiraahdo mid dhaqaaq midna wuu ii diidaa waayo qalbiga hooyada Soomaaliyeed waa mid naxariis ka samaysan dumarka Soomaaliyeed dabcan aadan u daalanahay xilligii nasashada xilligii abaalgudka xilligii maaragtay waxaan ku jirnaa anagu aan guryaheena ku noolaan lahayn laakiin maysan dhicine barakac iyo dhibaato ay nagu dhacay caruuraha markaan usoo laabto hooyadu marxaladaasay ku jirtaa waxaan arkay caruuro hooyo intay ilmihii waxay siisa markay weyd isku dayday inay tawleedka ku rido musqusha ilmo yar oo 2 bilood jira waxyaabihii ugu xanuunka badnaa waxaa iigu yaab badnaa ayana aabe ilmihii markuu wuxuu siiyey garan waaye ilmihii ugu yaraa intuu qaada badda inuu damcaynu raaciyo maantay xarunta kusoo booqanuu joogaa waa ilmaha hadduu ugu bato 5 years old marka marxaladda duruufta qofka markaan waxba haysanin ilaahay dadka waxba uma waayin ilaahay dadkana waxba maaragtay waan wadaawanaya waxaa u baahan inaan wax hoos u fiirino oo inta badan anugu aan dul istaaga waxay tahay agoomaha hooyada gablanka ah hooyada dariiqa xaaqaysa iyo kuwa maaragtay danaha maaragtay markaa fiirisid aan dabkaba shidin karin waxaa inta badan la fokus gareeyaa barakacayaasha wax la yiraahdo oo ah dadka banaanka geedaha hoostooda hurda ayaguna wadankoodii magaaladoodii intay yimaadeen caasimadoodii guryahoodii kasoo cararay oo colaadaha iyo maaragtay masiibooyinka dabiiciga ah roobabka iyo waxaan maaragtay la dagaalanka argagixisadii al-shabaabka iyo deegaanada laga haysto waxay imaanayaan caasimadii waayo caasimadu waa hooyadaa lagu soo hiranaya marka aniga culayska ina haysto wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed oo aan iska warqabin inta badan oo marka qaarkood waxaad arkaysaa qof gaarigiisa mukayfka maaragtay intuu heesiisa maaragtay sameecadaha u dheeraysto iska dhaclaysanayo maba garanayaba laakiin anigu masalan usoo qaato kuwaas waxaan ku yiri xaramkaba waxaa jooga dad badan oo aan kabcada ku dukanin laakiin Sacuudiga joogo islaama marka kuwaas waxaan leenahay way qalbi adag yihiinoo ilaahay aan ka soo qaadaynin maalmihii hadda bisha Ramadaan waxaan ku dhex jirnay COVID-19 iyo bishii Ramadaan iyo dadka aan ka hadlaynin annaga haween ahaan COVID-19 ka maskan soo saarnay maskan hadda aad u jeedaan oo aan ugu talagalnay inaan u qaybino caruuraha hooyooyinka iyo dadka masaakiinta ah haweenka sameeyay annaga sameynay waxaan ugu talagalnay in gabdhaha shaqo abuur aan u sameeyno kadibna gabadhu ay maaska ayadoo ay xirato laasigaas lagu sameynayaa waad u jeedaa gabadha feereynaysa mid ayada tolaysa mid way u jarjaraysaa waan diyaarinaynaa dabcan waa isku tashi wax kala ma ah markii aan aragnay China laga keeno Turka laga keeno waan fikirnay marka haweenku mar walba hooyadu waa hal abuur hooyadu waa hanti dhowr hooyadu waa xeer ilaaliye hooyadu waa garsoorka cadaaladda ayada ah hooyada ayada macallina hooyada ayada abaabiye ah hooyada ayada hooyga naxariista ah waxaan aad ii soo jiitay barnaamijka wuxuu ku bilaabanayaa hooyo dabcan hooyo mar walba markaan eegay xayeysiintii aan dib u eegay ilaa maanta in badan aan kilibka ayaan dib ugu laalaabtay oon siri DJ Square ma qalbigaagu ka hadlaaya malaha oo hooyo oo maaragtay haddadan aad xiran tahay weliba hooyo waa wax aad aan ugu faraxsannahay inta i daawanaysa kumanaanka kuna waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la isku naxariisto dawladdeenu waxay u baahan tahay in dadku ay fahmaan in ayagu dawlad tahay dawladdu waa number la tirin karo hadday noqoto baarlamaan hadday noqoto wasiiro hadday noqoto maamul gobol iyo state-yadaba laakiin 10 million people oo dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso oo haddana isku damqanaya oo hadduu dib dhaco isu istaagaya oo aan kala haraynin haddana kala jeeda taas waxa looga bixi karaa barnaamijyada DJ Square uu wado oo aad ku qiimaha badan marka maamo anu waxaan fahamsanahay taan rabay hooyo inaan ku weydiiyo oo su'aala qurba joogta anagu ka mid nahay xagga waxa ku jira oo aan arkaa
dadkii mas'uuliyiinta ahaa iyo dadkii magac ku lahaa bulshada Soomaalida oo shanta qaaradood adduunkaba ku sugan ase qurba joog ahaan maanta dadka magac leh oo ku inuu kula daawanaya maxaad kula tarin lahayd maxaanu qaban karnaa oo ciyaalka ka jigjiga jooga ka hargeysa jooga ka xamar jooga ka garoowe jooga ka gaarisa jooga maxaan u qaban karnaa iyo fariin maxaa oran lahayd adduunka waxyaabaha in la siiyo oo annaga aan deeq bixiyaasha ka sugno waa fundraising waa contribution annagu aan isku darno dabcan waxaan ku talin lahaa in DJ Subeer waa samafale qof walba oo Soomaali ah oo wax bixinaya in uu wax sadaqaysto oo ah sadaqa jaariya taas oo loo bixinayo Ilaahay dartii dabcan ilma caruuro agoon ah ama darbi jiifa oo aan aabayo hooyo midna lahayn haddaad ciid siiso $10 haddaad dhiibto waa lacag £1 haddaad dhiibto waa lacag haddaad dhiibto $100 waa lacag wixii Ilaahay ka soo qaado $30 dhiib whatever waxaad awoodaba waxaan qabaa marka in lacagtaas ay dadku ururiyaan maaragtay lagu soo dhiibo adigana aad soo gaarsiisaan kuwa ugu mudan bishii waxa inoo dhiman saddex cishaa ka dhiman dabcan waxaan aaminsanahay aniga aragtidayda anigoo ah qurba joog laftirkayga oo asalba ka imid oo aan isleeyahay waxaan u ahay representative oo magaalada Muqdisho ayaan u joogaa waan ka damqadaa cidda qurba joogta marka qaarkood marka la dhaliilaayo still marka anu wali qurba joogaanahay waayo dadku waxay ku leeyihiin qurba joogtu waa sidan waxay aaminsan yihiin dad baahan oo yimid inaan nahay laakiin ma oga inaan nolol ka soo tagnay aanu nimid inaan sacrifice garayno waan ku dhimi karnaa waan ku dhaawacmi karnaa intee inooga dhimatay oo maaragtay engineer yariiso uu ka mid ahaa Allah u naxariisto duqi magaalada Muqdisho cawl daahir ka mid ahaa maxaan ku dhahaa ii sheeg dad badan oo bulshada aad u qiimo ugu lahaa ayaan ku weynay waxaan marka aan leeyahay hal la dhiibo lacagta aan istaakulayno dadka qurba joogtu waa kuwa dalka samata bixiyay waa kuwa dalka wax badan ku soo celiyay waa kuwa maalin walba u taagan inay dadkooda u adeegaan marka waa laba qaybood qof uu yimaadaa xeebta liigu tagaa markuu enjoy gareeyo maalmo kadib inta pocket money gu wato markuu xogaa isticmaalo dabadeedna wuu flight gareeyaa dib ugu laabtaa meesha ka yimid laakiin sida DJ Subeer marna bajaaj raacaya marna qof leh war aawo gudoomiye Zainab war jawaar xagee joogtaa waxaad arkaysaa iyo biyo cabitaanki macaanada soo kac oo kale in lagu fakiro dadkeeni baak inaan annagu iscaawino oo isku tashano waad aragtay dalka isxilqaan hadda magaalada Muqdisho markaa fiiriyo magaalooyinka markaad aragto dadka Soomaaliyeed ma way isqaanaan cid aan cid garanayn male marka inta badan hadday joogto Jigjiga hadday joogto Hargeysa hadday joogto Djibouti iyo hadday joogto Gaarisa hadday joogto maxaa ku dhaa Nairobi ama Muqdisho ama maaragtay Beledweyne iyo Kismaayo hareeraheedaba waa Soomaali dadka Soomaaliyeed macna kale ma sameynayso waxaan nahay dad isla dhashay oo runtii isku qasban waan isku qasbanaa waayo waxaan isku kay qasbay koow midabka diinta iyo luqadda iyo eeli xigaalo oo annagoo aan cidna qofka kale uusan waxba maaragtay uusan dheerayn maadaama marka dhalinyarada waliba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan marka aan iraahdo dhalinyaro hadda annagu waan tagnay dhalinyaro idinka iskale waqtiga waxaan qabaa marka DJ Subeer wax aawadid waa wacyigelin waa heesii haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haddii sanataradii ka soo saartay anigii hooyadii gobolka iyo halkaan iyo in badan oo daawanayso armaanta iyo isu kaaya keentay Abuukar Qaadi adaab waxba ku dhimanayn marka aduu habeen walbaba sidaas isugu keen marka dambe ayada dan isku raaci habeen Hargeysa naga deji habeen la Jigjiga nagee habeenba meel habeen garowan ka deganaynaa habeen bay dhaban tagaynaa habeen balka ku tagaynaa war dalkan marka labaad ilaahan kugu dhaariyay qabiil muxuu taraa qabiil qofku ma deeqo waa qoys qabiilka dhan oo lagu sheegay reer hebel waa family qoyskeeno kala ah marka nationkan badan oo maaragtaan isleeyahay wadanka waxa ka maqan wadaniyada ay naga maqan wadaniyadu waa mid dadka barta wax lahaanshiyaha wadanka wadaniyada lagu bartaa marka burburkii 30 sano ayaan dadka loo qorin caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogta ee qaarkood xabsiyada ka soo oynayaan waxaan arkay kilib hadda gabar UK joogta ay soo dirtay leedahay Saudi Arabia dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka xiran dabcan safiira la diraya magaala loo diraya xaaskiisii caruurtu geysanaya
dhagala meeshaasuu fadhiyaa waa safiirka Soomaaliya u jooga wadan hebel dan uu enjoy garaynaya waxba macnaha ma sameynayso laakiin waxa la rabaa in qofkaas uu noqdo inuu dareemo wadanka uu joogo ee Soomaaliya meel qof Soomaaliya adduunka aan maanta u sii joogin male waa inuu dareemo asaga wadanka ka ah asaas safiir u ah asaga siyaasadda u maqan waxa la rabaa qof walba oo magaca Soomaaliyeed sheegto hadduu u baahdo dukumeenti iyo hadduu ciqaaban yahay labadaba asaal rabaa inuu doodo waayo madaxweynuhu warqadda markuu u saxiixay ogolaashiyaha la siiyay waxa tahay safiir wadan hebel iska hurdo saxa ma ah waxaan arkayay gabadhii la geeyay Zimbabwe miya xaawo oo wasiiradda soo ay caafimaadka ayadoo dhalinyaradii iyo ganacsatadii iyo magaalada la shirayso marka waxa soo jeedin lahaa halkii aan xogaa yar weecde xogaa yar aan gashanaya oo ah 30% boqolkiiba 30 markaan ku doodayno gabdhaha ay dhalinyarada wax loo dhiibo odayaasha xogaa laga joojiyo ماما جواهر بارقم waxaan ku leeyahay hooyo I love you waan aadna waan kaga mahad celiyaa soo dhaweynta iyo garabka ay siisay every time aan Muqdisho imaado thank you love you Eid Mubarak Eid Mubarak thank you thank you I love you ما شاء الله ما شاء الله salaam mama dhamaantiin ما شاء الله wow wow fantastic ماما جواهر بارقم wow